السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Customer Service Skills. maanta waxaan bilaabaynaa cashirka koowaad, modulka koowaad oo ku saabsan Customer Service Workplace, qaybtiisa koowaad, Part 1. The fundamental duties of a customer service worker are to answer questions and resolve problems. Haddaba aan ku bilaabno Customer Service at Workplace oo modulkan oo ku saabsan serviceka la siiyo customerka goobaha shaqo markii la joogo. qofka customer serviceka ah waa maxay shaqadiisa basically yani shaqadiisa waxaan kusoo koobi karnaa laba mid: answer questions, inuu su-aalaha ka jawaabo. طبعا customer badan ayaa businesska u imaanayo, su-aalo badan ay weydiinayaan, iyo resolving problems, iyo customero oo problems qaba oo problemyadoodii in loo xaliyo ay tahay. Success often depends on how well the customer service worker is able to connect with customers on a personal level. In lagu guuleysto marka hawshaas oo ah in su-aalihii laga jawaabo, xalinta mashaakilka customeradana waxay ku xiran tahay sida uu qofka customerka uu la xiriiro, communicationka uu la sameeyo customeradaas. Haddaba, in this unit, modulkan, we discuss skills related to creating and relying on a professional and helpful attitude, creating a strong first impression, communicating well, favorably, verbally and non-verbally, and most importantly, understanding exactly what your customer needs and wants. modulkan oo ilaa ay 4 qayb runtii ka kooban, waxaynu diiradda ku saari doonaa xirfadaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka customer service worker-ka ah. waxaan diiradda saari doonaa muhiimadda ay leedahay qofka customer serviceka inuu noqdo qof professional ah, attitudekiisa iyo dhaqankiisa uu aad u wanaagsan yahay, communication la sameyn karo customerada verbally iyo non-verbally. sidoo kale waxaynu diiradda saari doonaa muhiimadda ay leedahay in la fahmo baahiyaha customerka, needs and wants, iyo waxyaabaha uu customerka u baahan yahay. haddaba, customer service job description waa maxay sifooyinka shaqo ee looga baahan yahay customer serviceka, amaba waa maxay responsibilities iyo mas-uuliyaadka looga fadhiyo customer service workerka. customer service workerka waxaa looga fadhiyaa to interact with customers, clients, constituents and so forth on behalf of a company or organization. They might also provide information about products and services. They might also collect detail on a customer complaints and help resolve them. And also customer service workers might also take orders and handle returns or refunds. customer serviceka runtii shaqooyin badan ay qabtaan. waxaa shaqooyinka u muhiimsan waxa waaye inay la tacaamulaan, ay la falgalaan customerada iyo clientiga ayagoo markaas mas-uulka ah on behalf of companyga iyo organizationka markaas ay u shaqeynayaan. sidoo kale waxaa looga fadhiya inay bixiyaan information ku saabsan productiga iyo serviceka shirkadda ama businesska ama organizationka uu bixiyo. sidoo kale inay macluumaad ay ka aruuriyaan oo ay ka qaadaan customerka, ayna xaliyaan mashaakilkooda. sidoo kale waxaa looga fadhiyaa inay handalgalayaan orderska ay customerada sameynayaan iyo wixii la xiriira مثلا return haddii alaabo soo celinayaan, amaba refund waxa loo celinayo qarashaad iyo lacag oo customerka loo celinayo. Simply put, the customer service workers is answers questions and solves problems. These tasks require solid listening and communication skills and the ability to connect with customers through many different forms of media. Okay, haddaan marka soo koobno oo aan fududayno, waxaan dhihi karnaa customer service workerka oo aan usoo gaabinay CSW waxaa looga fadhiyaa inuu ka jawaabo su-aalaha customerada uuna xaliyo mashaakilkooda. arrintaa waxay u baahan tahay marka xirfado kala duwan ay ku jirto communication skill, ay ku jirto listening, qofka inuu dadka uu dhageysan karo, iyo sidoo kale ability inuu la xiriiro customerka through different medias. waxay noqon karaan telephone, email, face to face. waan arki doonaa insha allah. runtii customer service jobska waxay ka mid yihiin shaqooyinka adduunyada aad iyo aadka looga baahan yahay. business iyo organization maanta ka maarmana ma jiro at all. for example, maraykanka oo kaleeto waxaa la sheegaa ilaa 2 milyan customer service job inay ka jirto ama wax ka badanba.
qaabab marka kala duwan ayay shaqooyinka customer service ay ku yimaadaan. qofku wuxuu noqon karaa receptionist, uu noqon karaa ama front desk clerk, qofka soo dhaweynta ama istiqbaalka ama receptionistiga waxa waaye wuxuu ka mid yahay customer service, uu ka mid yahay because waxa waaye qofka kow ee customerka la tacaamulayo oo la falgalayo. wuxuu noqon karaa customer servicekaas shaqadu qaban karo amaba titleka wuxuu noqon karaa sales person, uu noqon karaa laano still customerka ayuu la tacaamulayaan. insurance agent uu noqon karaa qof oo dadkii macnaha insuranceigi shirkadii caymiskii kusoo xiro ayuu noqon karaa. data entry amaba order clock ayuu noqon karaa clerk, yani shaqaale oo data entryga qaabilsan amaba orderka customerka inuu qaabilo. wuxuu noqon karaa telemarketing specialist, qof through telephone suuq geynaya product serviceka businesska, amaba call center representative, qof jooga call centerada, yani dadka inta soo wacaan haye maxaa doonaysaa, maxaa rabtaa, maxaa sida dadka call centerada fadhiyo. dadkaas oo dhan yani waxa weeye waxay hoos imaanayaan under customer service job ayay hoos imaanayaan. haddaba waa maxay job descriptionka marka typically customer service workerka? customer service workerka طبعا shaqooyinkiisa labaan kusoo koobnay. waxaan nidhi answering questions and resolving problems. laakiin haddaan sii qaaqdaa dhigno waxaan dhihi karnaa number 1 listen and respond to customers needs, in ay dhageystaan ayna ka falceliyaan oo ka jawaabaan baahiyaha customerka. provide information about products and services, inay ka bixiyaan information productyada iyo services businesska ama organizationka u bixiyo. take orders, determine charges and oversee billing, yani inay orderada iyo dalabaadka customerada ay qaadaan, jaajarkii ay ku sameeyaan oo qarashaadkii ay ka qaadaan, iyo billingkii ay u sameeyaan, observe gareeyaan. review or make changes to customer orders, sidoo kale inay muxuu ahaa inay review gareeyaan, ay muraajaciyaan, ay ku noqdaan amaba wax beddelay ku sameeyaan customer orderskii, iyo amaba returns inay fiiriyaan haddii مثلا wax uu customerka uu soo celiyo oo dhowr waxaan aniga saa u raba maaha productkiisa saan u filayn saan u maleynaya maaha. sidoo kale record details of customer contacts and actions, inay record gareeyaan detailska ku saabsan customerka ishag muxuu ah contactskiisa. sidoo kale research and answer questions, very important. sidoo kale refer customers to supervisors, managers or others who can solve their problems, yani inay u refer gareeyaan ishag muxuu ahaa customeradii supervisorada iyo managerada ayaga ka sareeyo oo runtii awood u leh in ay xaliyaan ishag muxuu ahaa mashaakilkooda iyo problemadooda. marka actually waa very important. Customer service workers might work in a customer contact centers using telephones, email and live chat connections, or they might be stationed at service desk providing face-to-face service to customers on site. And customer service waxay noqon karaan dad contact center fadhiyo oo through telephone ama email dadka uga jawaabaya, amaba face-to-face, yani dadka ku khidmeynaan way noqon karaan. So marka customer service workers may work from a manual that provides solutions and answers for most potential questions and problems. If an employee is unable to resolve a problem, she or he may turn to team members who or supervisors for assistance. Customer service yani waxaa looga fadhiyaa inay runtii solutions ay bixiyaan problemyada iyo su'aalaha ka imaanaya dhinaca customerka. haddii ay marka ay awoodi waayaan waxay sameyn karaan inay refer gareeyaan managerada iyo supervisorka si ay u caawiyaan. Some customer service workers specialize in using a single mode of communication, such as telephone, email, or chat. Others are assigned to communicate with customers using several modes. As such, customer service workers need to have solid communication skills as well as up-to-date technical skills related to the various communication technologies and software programs. Customer service-yada qaarkood waxay ku takhasusaan hal qaab oo communication ah. Mesela telefoonada ku takhasusayo inay customerada ay uga jawaabaan su'aalooda, problemada xaliyaan. qaar email ku takhasusayaan, qaarna intaas oo dhan emailka, online chatka, telefoonada, face to face ka. taas marka waxay keenaysaa runtii customer service workerka marka inay noqdaan dad technical skillskii la xiriira teknolojiyada iyo isticmaalkeeda iyo softwareada inay si fiican u yaqaanaan muhiim wey. Most every type of business and service agency provides customer service or support, and workers may need to develop specialized knowledge in a particular field, such as banking, public utilities, consumer electronics, computer software, etc. Customer service workers in a retail store often may help customers learn how to use a product or handle a return for defective or unsatisfactory purchases. Customer service workers, waxaa looga fadhiyaa ishag muxuu ahaa in ay
ishag muxuu ahaa bixiyaan specific customer service ama support inay bixiyaan taasoo marka sometimes ay ku qasbayso inay ku takhasusaan specific field مثلا qofka hadduu customer service worker uu ka yahay bangi waa inuu bangi wax fiican ka yaqaano si uu u shaqeeyo public utility hadduu joogo مثلا yani service oo dowladda ay bixiso kaleeto مثلا yani waa inuu wax badan ka yaqaano servicekaas hadduu مثلا electronics uu yahay ama computer software waxaas oo dhan waa very very important marka arintaas waa arin aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale muxuu ahaa customer service workerada ka shaqeeya مثلا retail storeska مثلا يعني hadday noqoto meel computer lagu gado mobile lagu gado other products lagu gado yani waxaa laga yaabaa in looga baahan yahay مثلا inay tusaan ama ay baraan customerada sida loo isticmaalo a particular product مثلا si loo isticmaalo مثلا qof baa electronic gatay مثلا air condition uu gatay مثلا ama غسالad uu gatay yani isha muxuu ahaa customer service workerada qaar gaar ahaan in retail workers yani isha muxuu ahaa waxa ay sameynayaan they provide information sida loo isticmaalo even sometimes they show them practically sida loo isticmaalo shaygan amaba yani productgan uu customerka iibado marka waa very important skill sets marka yani xirfadaha ugu muhiimsan ee customer service workerka looga baahan yahay maxaa kamid ah communication skill communication waa very important marar badan kasoo celcelinay waana kasoo hadalnay waxaan nidhi communication hadduu yahay through telephone through email through chat yani qofka inuu yaqaano sida dadka loola xiriiro clearly and accurately waa very very important hadday tahay written qoraal amaba spoken style hadday tahay labadaba waa very very important because customer service workers must engage sensitive listening and speaking skill inay galaan waay macnaha qofka markuu wax dhageysto oo dadka dhageysan karo ayuu dadka baahiyahoodii haqabtiri karaa su-aalahoodiina ka jawaabi karaa marka communication skill set waa very important sidoo kale problem solving skill sets ayaa looga fadhiyaa sidoo kale customer service workerska because maadaama looga fadhiyo inay xaliyaan mashaakilka customerada iyo macaamiisha waxaa muhiim ah marka inay leeyihiin xirfadda xalinta mashaakilka runtii xirfadda xalinta mashaakilka waxaa kamid tahay xirfadaha Baghdad Online Academy ay bixiso koorsada waxaa jirta effective problem solving and decision making skills ardayga doonaya inuu la soo xiriiro waa inuu la wadaageena koorsadaas waa muhiim because customer service workerka maadaama looga fadhiyo inuu xaliyo problemyada iyo mashaakilka customerada in xirfadda xalinta mashaakilka ay leeyihiin waa arin aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale si ay problemyadaas ay u xaliyaan waxay u baahan yihiin xataa in ay aqoon ay u leeyihiin fieldi ay ka shaqeynayaan hadduu bangi ka shaqeynayo inuu bangiga si fiican u yaqaano iyo wax uu qabto iyo problemyada waxa keena iyo problemyada sida loo xaliyo very important customer service skill sets ayaa kamid ah xirfadaha looga fadhiyo inuu barto qofka customer service workerka ah si uu marka mashaakilkii u xaliyo su'aalihiina ooga jawaabo so marka qofka customer service-ka waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado background kala duwan مثلا qofka waxaa laga yaabaa inuu bartay engineering amaba uu bartay electronics amaba uu bartay computer amaba uu bartay business amaba uu bartay accounting amaba banking uu bartay laakiin loo dhiibo shaqo customer service involve garaynayso marka apart from knowledge kaas uu leeyahay wuxuu u baahan yahay inuu develop karayo sidoo kale xirfadda customer service-ka yani oo aan runtii koorsadan ugu talagalnay runtii ardada inay ku bartaan si marka ay howlaha iyo waajibaadka looga fadhiyo customer service-ka ay runtii si fiican ay uga soo bixi karaan halkaas waxaa inoogu dhamaaday modulkeeni koowaad qaybtiisa koowaad inta ku kulmayna qaybta labaad waxaa idinka tagayaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu